gooja cadda wixii ka dhacay wax la mid ah saydhaca ka dhici doono weliba ka xun baa ka dhici doonta haddaanan laga fiirsan oo uuna ka fiirsan ninkan la yidhaahda gaxnuu ka fiirsan ciddii doonaysa ciise inay barakaciso saylac iska dhaafe garas oo ciise degan yahay xataa saylac waa magaalo weyn oo ciise loo yaqaan xataa buur ciise saarin ciddii ku xadgudubta dilaalaya ilaahay baa baneeyay dilkooda kulan wacan wanaagsan dawdeel ku soo dhawaada muuqaalkeena qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya beesha ciise oo markii ugu horeysay ka jawaabtay eedeymaha iyo sidoo kale hadallada kaga imaanaya beesha gudabiirsi ciise markii ugu horeysay waxa ay sidoo kale faahfaahin iyo sharaxaad dab ay ka bixiyeen cid iskale magaalada Saylac oo ka tirsan gobolka Salel ee maamulka Somaliland maxaa ka jira in ay duulaan iyo sidoo kale weerar culus ay ku qaadi doonaan qaybo kamid ah galbeedka Somaliland xilligan maxaa soconaya maxayse madaxda Somaliland ee wadaan gooja cad wixii ka dhacay oo kale miyaa ka dhici doono qaybo kamid ah galbeedka Somaliland xoga faahfaahsan iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ayaan idinkaga haynaa muuqaalkan marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 23 bisha 12 December ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2025 haddii aynu ku bilowno beesha ciise ayaa markii ugu horeysay waxa ay si cad ee markaasi ay u shaacisay uguna hadashay xaaladda ka jirta qaybo kamid ah galbeedka Somaliland beeshu waxay sidoo kale shaacisay in aysan cidi duulaan aysan ku ahayn balse dadkeeda iyo sidoo kale deegaankeeda ay difaacan doonto iyadoona intaas ku dartay wararka been abuurka ee maalmihii ugu dambeeyay lagu baahinayay baraha bulshada in ay yihiin waxba kama jiraan iyo sidoo kale in ay weerar culus ay ku qaadi doonaan qaybo kamid ah galbeedka Somaliland mid kamid ah salaadiinta u hadlay dadkaas ayaana sidoo kale waxa uu shaaciyay in xukuumadda madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ay doonayso in ay deegaanadoodii iyo dhulkoodii ay ka barakaciso sidoo kalena ayna suuragal lahayn in deegaanadooda ay ka barakacaan waxay sidoo kale beesha ciise ay ku dhawaaqday in wararka been abuurka ay la xiriira in degmada Saylac ay leedahay beesha gudabuurse ay tahay waxba kama jiraan sidii hadalka u dhigtay beeshan iyadoona intaas ku dartay in ay deegaankaasiyada ay leedahay sidoo kalena markaas ay difaacan doonto sidoo kale beesha ciise ayaa waxa ay ku dhawaaqday in wixii hore ugu dhacay oo kala gooja cadda ay markale ay ka dhici karaan qaybo kamid ah galbeedka Somaliland haddii aysan xukuumadda madaxweyne Cirro aysan joojinin abaabulka iyo sidoo kale beesha gudabiirsi oo ay hubeynayso sidii hadalka u dhigeen beesha ciise ayaa sidoo kale waxay intaas ku dartay in muddooyinkii ugu dambeeyay ay markaasi hub uruursi xoogan ay wadeen beesha gudabiirsi iyagoona sidoo kale doonaya in dhulkoodii iyo sidoo kale deegaankoodii laga barakiciyo iyadoona intaas ku dartay in tallaabooyinka qaarkood oo ay beesha gudabiirsi ay qaadayso ay tahay mid aanan marnaba aanan loo dulqaadan karin mid kamid ah salaadiinta beesha gudabiirsi ayaa waxa uu si faahfaahsan uu kaga hadlay xaaladda deegaankaasi waxa uu si guud u shaaciyay isqabqabsiga deegaanka ka jira waxa uu sidoo kale uu ka hadlay arrintan abaabulka ah iyo waxa ka jira in ay iyagu ay duulaan ay ku yihiin qaybo kamid ah galbeedka Somaliland waxa uu sidoo kale uu shaaciyay xog faahfaahsan oo dheeraad ah uu ka bixiyay cidda gadaal ka taagan in dagaal sokeeyo uu ka qarxo qaybo kamid ah galbeedka Somaliland wargelin muhiim ah ma doonaysaa waalidkaaga oo dhintay ama sariiryaal oo xanuunsan in lagaaga soo cimreeyo bisha Rajab oo ka mid ah bilaha xurmada leh
wax ka yar $300 ayaa lagaga soo cimraynayaa waalidkaaga waxaana fursaddan kaaga faa'iidaynaysaa shirkadda Taqwa oo kuu samaysay qiimo dhimis ballaaran waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cimradu u dhacday haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer nagala soo xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashadda kaaga muuqda shirkadda xajka iyo cimrada ee Taqwa Xaj and Cumra ku dooro alla ka cabsi ammaano iyo adeeg hufan arrinka horta la leeyahay ciidamada Jabuutiga saylac qabsanaya waa been saylac reer baa lahow reerkii lahaa baa joogo ayaga la doonayo Somaliland iyo Samaroon iswato in xoog lagu qaado sida Jabuuti baa soo duujay iyo Jabuuti baa saylac qabsanaysa waa boorasku qoranta xukuumadda Cirra ay wada way xukuumadda Cirra iyo xukuumadda Somaliland baan dhigi karo caadaystay beelaha Somaliland dogo ay beelbeel u habsadaan oo adogeed wixii sool ka dhacay waagii dhugeed heer ay gaadhaan markii la garamay ay yiraahdeen anagu dhulka Ingiriis baa nasiiyay iska guuraba ay yiraahdaan dadku qaar ku hadlaan marka waxa weeye waxa maanta dhacaya xukuumadda Somaliland iyo beesha Samaroon baa horta wakiilka ah colaada weeradiyo kariyo haddii alla ku idmayo mas'uulka ah waxa weeye beeshan ciise reer saylac iyo inta u dhaxaysa magaalada la yiraahdo de Luqayo iyo aagay dhulka deegaanka de wadad Soomaali ah dadka Somaliland oo ayagu maamulka samaystana kamid aha hadii maanta maamulka laga saaray oo wixii Somaliland shalay ku midaysneed laga saaray oo leeyahay Ciise la raraya wax suuro galaya ma aan Ciise cidna ma rari karayso wala Cirra wala Samaroon wala ogaaska Samaroon cid rari karayso ma Ciise waa lagu daalaya aqliga ha shaqeeyo waxa leeyahay Somaliland marka waxa la dhigi karaa waa xukuumadii sharto shalay la iscaanay ku duushay waxa ogeed ka dhaceen dadkii is ogol wada Somaliland ogol doonayeen inay nabad ku noolaadaan isbitaaladii madaafiicdii iyo aan xasuusanahay ummadii Soomaaliyeed ee meesha naftooda ku weydii marka de maanta saylactii tul la mid hay qorsheeyeen waxa leeyahay dadka Hargeysa tahliil aan shaqaynayn baa la siiyay adeer rayal horta leentaan in ku qofulan dunyada kama dhicin hal qabiil oo qaran noqdo Soomaalida hadda la yaabiyo Soomaali kaligeed dawlad leedahay isaa qaligi dawlad noqon maayo waxa weeye dad Soomaaliyeed baa tihiin dawladda Soomaaliya calanka Soomaaliya dadkii keenan tihiin horta marka koobaad waxaan leeyahay Allah in ka dhaadhiciyay in Soomaaliyeedna ku soo noqotaan magaaladii Soomaaliyeed calanka Soomaaliyeed looga hortaagay Hargeysa ahayd calan Soomaaliyeed magaalo laga hortaagay ayada ahayd ayad maanta haddaad qaato falaanad bulugu xidig ku sawiranta xabsi ku mutaysanaysa dadka xanuunku ku dhacay intee la dhigi karaa yaad maranaysa xanuunku waxa maskaxda kan ku dhacay kan qalbiga ku dhaca qadaran marka adeer horta ka qalbiga kaga dhacay Allah ka shaafiyaan lay Soomaalida kale cidin kama lahan cid Soomaalinimo in kale ma jirto cid calanka Soomaaliyeed in kale ma jirto dadkii ugu horeeyo xamar la soo doontay baa tihiin marka waxaan leeyahay horta taasi Allah in ka shaafiyo waxa soo haray tan colaadan galbeedka ka dhacday waxaan la hadlayaa beesha reer Sheekh Isxaaq waxa la doonayaa dadku inay taariikhda qoraan dib iyo dheef waxay u geystaan waxay dib u geystaan ay ka sabraan waxay dheef u geystaan ay u abaal celiyaan ciisu inay maanta isaaq u duulaan oo dilaan xaq uma lahan isaaq shalay markii la leynayay oo Soomaali weyn oo dhan birta saartay oo ay geeday harsalaan laayeen reerka kaliya u soo gurmaday ee naf iyo maal u huray ee ragooda u marinayeen ee dhaawacooda qaadayay oo la dhex mari karayeen ayagu ahaa in maanta Ciise in xulufo loo sameeyay liira Ciise rarayna isaaq wax loogu fadhiyo ma ahayn dawlad ha noqdaan ama shacab ha noqdaan waxaan leeyahay salaadiinta beesha reer Sheekh Isxaaq hadday xukuumadda waalatay dhimirka la isaaq oo dhan ma dhimir laa salaadiinta beesha reer Sheekh Isxaaq qaasatan beesha Subayr awal oo iyadu xigta deegaanka galbeedka ee labada bilood isku haysta inay ku baxaan dadka ehelka nabad kala dhigaan kala celiyaan haday awoodoodu noqon weydana ay faraha ka laabtaan weelasha beesha reer Sheekh Isxaaq ee saylac lagu daabulay waxaan leeyahay rayaal Ciise kama itaal badan doontaan ma dhicin doonto marna inta Ciise awood ku xukunta qori caaraday la hor fadhidaan hadii nabad la waayay oo Somaliland nimadii Cirra ka taliyay inuu xabad lagu bedelo oo xukuumadii Somaliland qaatay madaxweyne ku-xigeenkii Somaliland uu leeyahay haddaan Ciise la qaxinayno Soomaaliya laga kaxaynaynin waan iscasilaya adeer meesha wax yaalay wax ka soo socda ma jiraan meel cidlaha ku dhamaaneen tii shalay la ascaanayn ku qabsato kaliya ku qabsan gurihiina kaalaya cidna hadilayda ku yaalin dilin Ciise dilin kaba mudnay
waay beesha samaroon waxay sheegeen in ay dagaal kala hortegi doonaan bandhiga buuga xeer ciise in lasoo bandhigo war waxaas waa khiyaali samaroon dagaal ciise kagalama hortegi karo walaa boora mayna difaacin karin haddii dagaal la yidhaahdo been yaan lasu sheegin ciise waa dowlad ku tirsan laba dowladood buu u awood badan yahay diris la-ah deegaanka iyo dadkana way iskula egeyn somalilan waxba isma dheera etoobiyana way u awood badan yihiin jabuutina way u awood badan yihiin inkastoo labada qoloba meesha walba ay wada joogaan oo dee dadku dad wada dhasho helo wada jaar ay yihiin laakiin maanta dad maaragtay laba reer oo dee siman samaroonku waa reer yaroo kuwaale tilahoo dee aqoon-yahana mooyaan dad tiro badan ma aha xaabadan naarta lagu shubaayana balaaya ka dhigtay oo garan mayn dad hadda aqliga laga xadaaba maahan dad waxbartay oo aqoon-yahano profesoro soomaaliyeed baan ku ogeyn laakiin dadku ilaahay markuu rogaya qoom maalan baa ilaahay kasoo dhex saara mar haddii ugaaskii samaroon boorama dagaal uu cilaaminayo leeyahy saylax liga kaxeeyo ciiso dee iyagu laftirkooda waxaan dhihi karaya wixii isaaqu ku dhacay xanuunka ahaaba iyagan hayo dee laantii isaaqu madax martay mid la mid ahaa madax martay war somalilanna saylax inma siin karayso weligiina ma heli doontaan weligiina ma heli doontaan 1000 sano dama haddii la dagaalamayo waxaan leeyahay adeerayaal dadku waa is yaqaan waa dad helo waa dad jaara ciise iska dhaaf cabdalla gadiid haddii liin dhaafo samaroon uguma barakacin kartaan kamana adkaan kartaan reerka yare in soo xigay reer cigaal iyo bafuur laba in soo xigay reer ahaan in soo xiga haddii liin dhaaf aba kuwa kale ee reer ugaarka ee reer gidi ee reer geedii reer ku liin dhaaf walaadan ka adkaan karin malaa dadka deegaanka waa dadku aan tirinayo waa yaqaanadii deegaan waxaan leeyahay nimanka ehelkee walaalaha ee reer sheekh isxaaq ee dadka la dhashay labada beelood u siman ha lagu baxa labadaas beelood ha la kala qabto haddaan la kala qabanaynin wiilasha isaaqee meesha jooga meesha ku aroorinaya odayaasha meesha reer sheekh isxaaq waxaan leeyahay si deg deg ha ugu soo saara waay nimcaan gaxnuug waxau leeyahay dagaalka waa gelaynaa ciidankana waa in la kordhiyaa magaalada la geenaayo saylac arrintaasi dood badan kama dhalan karto maxaad ka leedahay nimcaan gaxnuug warkiisa gaxnuug kuwii cilaascaana joogay faysal bootaan hogaaminaya kama duwna kuwa la iscaana geynaya hadduu dagaal dhaco hubkana waa laga reebanaya maxaabiisna waa noqonayaan xaqiiqdan u sheegaya way ayuu noqonayaan baa jirta laascaana lagama itaal badan xaqa ka hiiliyey xaqdarradu had iyo jeer waa lagu jabaa kibirka waa lagu jabaa ninba abwaanaha waa yidhi ragow kibirka waa lagu kafaa kaa ha la ogaado kibirka waa lagu kufaa cidna kibir kuma raagto ilaahay baa kibir u sugnaaday oo iska leh aadanhu inay kibraanba ilaahay ma banayn nimcaan gaxnuug 4 gaari oo isku aadaniyo sirin ciise asagu waa ka hub badan oo isaaq waa ka sanad badan oo isaaq waa ka dawladsan dadku waa bajaar indhuhu may xiran yihiin reerku may indhuhu xiran yihiin adeero in aqoon-yahana dhalinyaro ah wax bartay aqoontiisa heerkaa ku gaaray dee dadku adigu aqoontaada kusoo xeshay cidi kaama soo xulin aqoontaada ha shaqayso dabiniyaa lagu dhigin raggaa aada walaalaha tihiine faamiilkaa ka soo wada jeedaana reesha isxaaqna dabin ha u dhigin ciidanka meesha ka soo saar xataa hadduu qaadan waayo cero amarka ciidanka adaa haysta soo saar labada beelood waxba ha u kala hilin ha soo kala haraane ciise somalilan ma diidano calanka somalilan ma diidano soomaalinimalanimada ma diidano waxa maanta dunida laaqaya ee ma aqaano meel laga diray waa ciise sabreesha la yidhaahda samaroon iyo beesha la yidhaahda haddii alla kuma reesha isxaaq oo samaroon doonaysa inay xaabada naarta ku gurto qayb ka mid ah sheekh isxaaq dhami kari maayo waxaan leeyahay beesha subayr awal khaasatan beesha jibriil abakor oo deegaankaa u xigto dadku suldaanka beesha jibriil abakor iyo dhammaan beesha subayr awal waxaan leeyahay ilmaadareyaal dadkaa ku baxo reebarigu dadkaa ma kala yaqaanaan dee way ku dhex lumayaan dadkaa ku baxo oday u soo qabto gogol u dhigo heshiisiiyo haddaad kari weynaa ha laga soo qaada wiilasha isaaq nin isaaq yuusan ku dhimin saylac cidna yuu ku dilin saylac maalmo xiisada ka taagan tahay reer sheekh isxaaq iyo beeshan kale la yidhahdo ciise haddii ciise awood badan ay hayaan saylac maxaa ka hortaagan in la difaacdo mise kula tahay in nimcaan gaxnuug iyo ragga lamidka la qaban karo oo awooddaas ay u babacdhigi karaan beesha ciise ciidankooda yow ciise dad la sahlan kara maahan ciise waxay awoodaan 100 kun oo wiil inay saylac soo geliyaan maalin barqacad gudaheed oo hubaysan raggii bay helayaan saanadii bay helayaan dadkii bay helayaan dad iyo dunyaba ilaahay baa u siiyey ciise dagaal haddii loo bilaabo idinu ilaahay ka hiilinayn hargeysa iyo boorama inay qabsadaan barqa kuma dhamo
dee qofku meel u maraya ilaahay baa xaqiisu yaqaana xaaladda anu ilaahay baa naqaana laakiin qiyaas ahaan markaan hubka iyo saanada heli karaan sheegno marka waxaan leeyahay gaxnuug raggu meesha uu ku goolo 4 wiil oo la yiri waa kumaandoos waariyo Soomaaliya iyada wada kumaandoos anigu weligay xabad ma ridin hadda qori lii dhiibana kumaandoosana ka daran waayo ninka Soomaalida qoriga riday aqoon waraadeer waxaan leeyahay waxa ka fiirso 4 wiil oo tuuto loo qurqurxiyo la yiri waa kumaandoos yaa waxa lagaaga sheekayn waxaan ku leeyahay shacab gadooday waxa laga dhaxlo wad garan karaysa dadka ehelka isku layn ka fiirsan la yarinka ka fiirso adigu hadii saylac lagu geeyay in dagaalada diyaarada wallahi saylac hadii la geeyo ciisa la safan lahaa anu ciisa la safan lahaa waayo ayaga xaq ku taagan ayaga la dulmaya ayaga la raraya ayaga la barakacinaya garas xabada dhinaca ka galay dhinaca ka galay ilaa ay kuwan xaq ogaadaan oo bartaan wax inay gardan yihiin ay ogaadaan waana wax waajib oo diini aba hatta tafiya ila amri allah way waridaysa waxaana loo ridaynaa in qofka walaalka gardarro ku weeraro oo qof Soomaali oo ehel gardarro ku weeraro hadaad qaban kartana qabo hadaadan qaban karin ilaa xaq uu ka arka ku rid markuu asaga marka baqo inuu soo qabto xaq qaatana ka siidaa saasa banaa waa gartay hadda marka la eego jabhada beelweynta ciise waxay helayaan hub kala duwan ciidankii Somaliland waa laga soo ceyriyay xuduudihii Ethiopia iyo sidoo kale Djibouti ay la wadaagayeen yow ciise hadar meesha kuma dhamo meesha laba reer baa jooga hadar laba jifa joogo jifa mamaasan ka siman oo mamaasan ka tirsan qolada la yiraahdo oo la yiraahdo Cabdalla Gadiid oo gobolkan awdal in badan degto iyo jifa reer waar ka siman oo laba reer oo ayaguna hadii alla ku reegeedii reer ku la yiraahdo ciise kale hadda dagaal soo galay ama soo gaaro jiidaha hore jooga ma jiro ciise haduu yimaad maalin cid meesha Somaliland wala Samaroon cid xabad ka ridi karto ma jirto hadda waa dadkii deegaanka ay reemiga ay xoolo dhaqatada ay intii tuulooyinka taalay way wax la leeyahay Djibouti baa soo duushay ciise soo duul ciise ma imaan hadda sida wax lagu wada haday haatana way imaanayaan marka waxaan leeyahay colaadaas la dhaqaajiseen ee xukuumadda cirashala ku dhawaaqday Samaroonna loo dhiibay war Samaroon wax in kaga xumaadmay wax kugu hagaagayaan aftiya adeer rayaal ka joogo ka fariisto hayeelina arrinkaasaan leeyahay waxaan u digayaa ninka la yiraahdo waraadar qaraabana dadku marka hore islaamka iyadoo inay is wanaajiyaan tahay hadana qaraabada waa la sii faray ilaahay wuxuu leeyahay ayuhalladina aamanu qu anfusakum wa ahlikum naaran waquuduha an-naas ayada musabbixi baa waan u akhriyay musabbixi markuu la ascaana ka dagaalamayaan u akhriyay waraadar ka fiirsan adna maanta waa ku akhrinaya cadaabha tabcan dad islaam walaalaha oo ilaahay meel ku beeray ana rarayo ana tirtirayaha oran waxba ma tirtiri karaysa dadka koomka ilaahay baa keenay cidna ma barakacin karaysid dadka gogol u dhig hargeysa u yeer kii qaldan iyo kii saxan u kala garqaad Soomaaliya oo dhan u yeero hadii alla ku idmay dadkaasi nabad ah ku soo dabaan waxa ku soo har xeer ciisaan celinaya hadaa tiri war xeer ciise aabaha oo dhalan adigu ina Cabdilaahi baa tahay oo aan dhalan ayaa xeer ciisu jiray dhulka adlada waan ka celinayaan lagu qaban jiray wadogto waaskii hadar ugu dambeeyay lagu qabtayo Somaliland waa jirtay waa lagu soo dhaweeyo dadkii doortay oo wax ka doortay Samaroonka iyo Isaaqaba kamid baayeen maanta waxa siyaasadeeyay oo Somaliland xeer ciise lagu ma qaban karo wax xukuumadda haday qaabka ku socotana Somaliland maamulkii 40 sano jirsaday ee dadka ku nabad ahaayeen ay ku kala ooleeno hadii alla ku systemka aha gacantaadu ku burburaya marka adeer waxa leeyahay arrinkan maanta dhacaya ka fiirsan lay professor taariikhda dib u qor ciise ciid adigu kama qaadi kartid Samaroon habe sheegan warkiis wala Isaaq wala Samaroon wala Soomaali weyn hadaad ka xiisataan taa ka kamid ciise ka qaadi kari war adeer hal lugo idinku ummadana habaabeynina waxaad ku socotaan ka fiirsan lay way ugaaska guud ee beelweynta ciise iyo jabhadiisa maxaa la gudboon ugaasku Soomaalida waxay tiraahdaa waxay Soomaalida ku mahmadanin gabadhaada doonay yani xaaskaada meeshan goofar ku xayiraan yani islaantayda iyo naagtayda waxba yiraahdaan xagga riwaqooyin gabadhaada baa leeyahay ninka xaaskaaga doonayo inantayda guursan laba yiraahdo deeyntu ma socdo taadu qabto rabaa ciise hadda cid nabad ka doonaysa mar dagaalkana waa la ilaamiyo waa lagu baaqayo muddo 2 sano waxa la filkinayo kolba saylac meel laga taataabinay dadku waad ogeedo inta mudaharaadii dhibaato ka dhacday waad ogeed waxaanba waa diyaarsan musabbixi baa la diyaariyo ninkan warqadihii mobile meel kala soo baxay hadda dhaqaajiyay magaalada
marka ciise hadda maanta ilaa la maqlo oo laga waabto oo la ogaado inay dadku tooda xabadooda wax karto oo intaan keliya reerahan keliya wax karin dagaal baa la furan oo u gudboon wax kaloo maanta u soconaya ciiso iyo wax kaloo ka dhageysanayaan dadka kale walaalaha ay yiraan reer Somaliland ciise Samaroon iyo Isaaq ma jiraan meesha reer Isxaaq dee maanta ma la ogaanayaa Isaaq hadday abaa leeyihiin iyo hadday ay yihiin abeesaba maanta la ogaanayaa waxaa doontaan ku dhaqaaqa laakiin ciise waxaan idin sheegayaa in gaxnuug baan u digaya adeer ragga meesha ku lahayn waa ilmaadeerada waa ehelka berri baad u baahan doontaa dadkan ka fog baad u heli doontaa dhabaata maalin walbay taagan war ka fiirsa xabadda maanta ciise aad ku rido waxbad kaa khasaarta ka fiirsa ku rido mar labaad taasaan leeyahay ciisaha waxaa taagan tahay uma babac dhigi karaan ciidanka Soomaaliland war ciise hadduu doono hargeysan oo qabto waa ay ka hor istaagi karayn iskaba dhaaf saylac bay ka hadlayaan kama hor anu ciise mi aniga hadda kula hadlaya laakiin dadka deegaankaana aqoon baan u leeyahay garanaysa awood ma laha inay qabsadaan awood garanaysa wixii Faisal Bootan ku dhaco kala dhici kala maal taaganta sababta inaan u dhicinin Faisal Bootan shalay markii garaadadu la hadlayeen oo la warabtiyo abti baa loo hayo wad garanaysa Abdurrahmaan hooyadii reerka haday isdilayeen buu hayo dadku way wada dhalo kuwana saas un baa la soo wada dhalaa warabti wada hadlaynaa horta bal ciidankan xasarada naga degtay naga jooji warabti naga jooji isagu la leeyahay ayuu war qaadan waayay ma garanaysa dadkii war dhihi lahaa war dadkan cabanaya bal ka soo baxo waxay ka cabanayaan hal la dhageystana waa loo sacbinayay waad garanaysaa maanta meel uu ku sugan yahay Faisal Bootan military buu ahaa aqoon u leh military ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed kamid ahaa aqoon darra ma helin ciidan 2,000 oo ka badan uu haysto 2,000 ciidanana lama qabto waxa ka hiiliyay ee ay ka jabeen waa xagga samada xagga Ilaahay xaggii bay ka jabeen xaq darrada dadka walaalaha dhiigooda la maanacay oo ay dilayeen guryaha muslimka leeyahay burburinayeen isbitaaladii masaajidadii wixii dhacay de Ilaahay dhiiga muslimka meel cidla ma dhigayo dhiiga muslimka Ilaahay meel cidla dhigamayo sida aweed baa ciqaabta u timid maantana saylac ciqaabti mid la mid ah gaxnu kaga dhacis haduu ka dagaalamo hadaba iga qormaanta ku diiwaan gashanaad tii kalaba saan bay u duuban tahay goojacda wixii ka dhacay oo kala saylac ka dhacay waliba mid ka daran ba ka dhacayso tii goojacda noqon doonta qarso ay wax la mid ah saylac ka dhici doono waliba ka xun ba ka dhici doonta hadaan laga fiirsan oo una ka fiirsan ninka la yiraahdo gaxnu ka fiirsan oo madaxweyne Cirra ka fiirsan oo wasiirkiisu gaashaandhiga ka fiirsan oo wasiirkiisa arrimaha gudaha ka fiirsan wallahi tii goojacda waxay noqon doontaa qarsaade marka waxaan leeyahay ragga ayaa la jibin ya ragga la isku layn waa dad ehela dad faamiil qura dad walaalo ah anu waxaan leeyahay waxa in baaqayo isaaqo balaaya la dhigi karaa isaaqo waxa u baaqdaa la dhigi karaa marka balaayo war ma darayaal ka fiirso ciisana maxaa la xabada rida ciise waxaan leeyahay ha soo aadana guriga dadeed ha soo aadana laakiin guriga in ciidin ku soo doonato haddaad ka sii jeesataan cadaabka la hingeeyaan lay laakiin guriga dadeed soo aadam miliyo de islaam dhiigii galay ama reer dadeed soo warar ama dhaca ama barakaciyo miliyo laakiin ciidii doonaysa ciise inay barakaciso saylac ku dagaalama lada ciidii doonaysa ciise inay barakaciso saylac iska dhaafe garas oo ciise degan yahay xataa saylac waa magaalo weyn oo ciise loo yaqaan xataa buur ciise saari ciidii ku xadgudubta dilaalaya ilaahay baa baneeyay dilkooda haddaba wixii ku soo kordho oo wararkeena iyo warbixinadeena soo socda ayaad ku daawan doontaan haddii Allah uu dilo waraale ka noqdo haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir like sar muuqaalka subscribe dhibuggan si aad uga mid noqoto saaxiibada joogtada halkan uga hela wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan ku soo gudbinayno habeen wanaagsan